runtii aad ugu faraxsanahay aniga qasaan maadaama hore u arkay urur ajnabi ah sida wadamada Nigeria Kenya iyo South Sudan oo marwalba ururkii nationalka ah oo inta marwalba xaadir ku yahay oo marwalba seminaaro iyo u qabanayo isla shaqeynaan gudoomiyaashii markaas wadamaas matalay anaga inaan maanta helna alxamdulillah waa ku faraxsanahay runtii ururkan inuu horumar badan sameeyo doono ila tahay sida wada shaqeyn karna markii waxa wada shaqeyn karna markii relationship positive alena relationship positive macnaha wax ka wada markii xiriir macnaha positive oo balance marka wada leena xiriir positive marka la wax ka wada in si gudoomiyaasha qaar ay ka dhawaajiyeen in waxyaabaha lagu kala fikir duwan yahay oo kale tina aan ku milmina waxa kamid waxyaabo lagu kala fikir duwan waxa kamid ah si waraakii Yunus ka dhawaajiyay ururka ardayda Soomaaliyeed oo guud ee wadankan urur la isku raacsan inuu sanayno ka dhawaajiyay waxa kamid in sidoo kale waxyaabaha qaar la isku waafaqay fikriyan hatta gudoomiyaasha qaar aysan isku waafaqsanin marka anaga gudoomiyaal ahaan yaadika waxyaabaha ka wada shaqeyn karna waxa kamid marka waxa ka wada shaqeyn karna in ardayda ayda barnoort adig yaatihiin maqsi Allah in ardayda ay ballamino kulama qabana assembly general assembly qabana in aad ku marti qaadno Cabduqaadir fiidki iyo yahay waa wakiilka rag oo qof walba markaas meeshuu joogo iyo ururkan uu ururjiya horta in ardayda la baraadik ardayda markii la bar kadib diiwaangelintu hadda qayb kamid ah ajendayaasha in diiwaangelin saxan leeyahay hadda anigu kala jaamacadda hadda intee gaan maahan diiwaangelintooda guud waa registration waxyaabo ku guuleystay kamid ah oo waa haystaa hadda alxamdulillah ardayda jaamacadda ugu soo beertinta keen oo sanad walba waa sameeyay registration cusub haddana waa haystaa alxamdulillah تركوبكاas oo kale u baahan tahay anfacaya jaamacadda ka finish meeqa arday ay jirto oo Soomaaliya oo wax barato maxay kala bartaan ma master bay dhigtaan ma badge bay dhigtaan ma foundation bay dhigtaan oo u baahan tiin waxyaabaha kale oo shaqeyn karno waxa kamid ah in aan qabsano meeting loo dhan yahay jaamacadaha kale ardayda matalayso iyo adika midowga la isku imaado laga sheekaysto armiye waxbarashada armiye ardayda not political not other issues sababtoo anaga ardayanahay ururkana waa urur ardayeed waa kaasa mid labaad mid ugu dambeyn waxa ku shaqeyn karnaa in si lillahi la isku shaqeeyo si lillahi marka la waxa ka wada in si daacad la isku shaqeeyo taasna waxa ka imaan kartaa in qof walbeeto uu mas'uuliyad iska saaro ururada fiidka aniga aan macnaha fiidka wakiilkeena dabcan reer Uganda oo ardayda maqsa laakiin maanta ma dhahay fiidka xilka saaran wax walbeeto la qabanaya waxaan mar walba diyaar u ahay wixii arday Soomaaliyeed loo qabanayo xilliga doonto inaan kala shaqeeyo doono duulayraad markii in ururka anaga dhan xil iska wada saarno oo aan ka wada shaqeynaa